si loo helo isdhexgal bulsho ayaa dhalinta ku nool xeryaha Dhadhaabi waxay mar walba isku hawlaan inay qabtaan ciyaaraha kubadda cagta si loo horumariyo sportska oo ahmiyad ballaadhan u leh nolosha waxaana waayadan dambe xeryaha Dhadhaab ku soo badanayay ciyaarta kubadda cagta ee loo yaqaan toddoba xagalka taasoo afka qalaad lagu yiraahdo seven side oo sahli karta in dhalinta kuwooda cuslaaday ay ka qayb qaataan waxaana xerada qaxootiga xagadheer lagu qabtay tartan socday muddo bil ah ayna ka soo qayb galeen 22 kooxood ugu dambeynna ay isu soo hadheen labada kooxood ee kala ah Lazio iyo FC Nabad iyo Nolol oo la magac ah xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ciyaarta oo ku soo dhamaatay gool kulaad guusha dhabarka u ritay kooxda FC Nabad iyo Nolol halkaas oo ay ku hanteen tartan socday muddo bil ah warbaahinta waxaa la hadlay qaar ka mid ah guddiga qaban qaabada iyo mas'uul ka socday hay'adda World Vision iyo kuwii dhamaantood bogaadiyeen hanaanka wanaagsan ee loo soo agaasimay tartankan dhamaaday aad ma santiin sida ay soo dhaweyseen midda labaad kubadda cagta waa shay aad muhiim oo maanta dhalinyarada soo aad iyo aad mar isku keento xagga balwada iyo xagga maarta mashquul maad waxa la inta ku mashquulahay waxa la xum kubadda maanta ayaa ka dhigtay shay mar isku keento laakiin kubadda nafteeda maanta waxay u baahan tahay nimankan maanta message riveriyash ama albatrash ninkan waxa uu tahay naxawi Soomaaliya san ku qanaxawi badana dagaal iyo qub diqaac ismee laakiin ninkan maadaama ay mudihiin xishmad iyo ina maarta aad iyo aad maarta oo ila dhisi maarta dia odi kolan xishmad that is first secondly ciyaartan maanta naftii ma aan isku talgalina maanta aan imaado laakiin staad iman dambe li sheegay maxaan rabnaa insha Allah taala siinay ciyaarta u dhici oo kale ciyaarta maarta ligay bilaan ugu bilaabanay ugu dhamaanay bayna sufan maarta nolosha goos aniga maxaan ay maantiran inaan maarta wax kasta oo maarta dhacay inaan wax ka qayb qaadano wixii oo aan ku saacin karno bari aan badana shay macaan rabaa inaan soo jeediyo waxaan arkayaa ma sha Allah ka baajira waxaan arkayaa kale fanaanada la keenay والله كوبكا بريمو باتي أنا مارت هاري أدو بدنين حنجعلنا مارت إنجلس أنا نفتي أنا مارت إن meeting we have what do you call meetings with all organizations in an youth representatives أي نوع شيء تندب كذا so that كوب إذا جينا وقترنا المجال أنت مين كمان تيجي فعلا محاوي إني مارت العقل بيه العقل مارت مانت حتى العقل واي مانت كوب كذا وبعد مانت عندنا دي حاجة مجال هذا محن شلون لأنك استوى next إن شاء الله next league إن رجعنا إن شاء الله إن وحوي كترسنا قصدا هايدين إن شاء الله والبيشن بيدو قدام بس معاوي أنا ما أنت سوقرتي نوم بس سوقرتين من قاسنا أدي ما استنجي ما أنت سهرتي هانيك عصنا إن أسفع نورا قدام يسين أو ما رجال يحومان هذا ما تبعت بوليس عمار جاي لكن مولوبا لأن إنك أسكو فيلم سدحنا أن هالحشمية جودي هالحشمية سيفعنا نقول إن شاء الله وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله sababaha loo qabtay oo maartay loo qabtana waxa kamid ahayd dhalinyarta in lagu soo celiyo dhaqamadeedii iyo maartay dhaqan hore u lumay in loo soo celiyo waan gartay marka liigan aad qabateen muxuu yani ka turjumayaa sidee buu uga qayb qaadan karaa isdhexgalka bulshada kubaddan waxaan u dhignay liigan in maartay dadka ay soo wada xigalaan in maartay qof walba oo shaqsi oo dhalinyaro ah uu noqdo in maartay qofkii kaliya oo maartay ka shaqeyn lahaa dhalinyarta liigan wax fangareeyay iyo wax maartay qabsay ma laha dhalinyartaas maanta liiga loo qabtay oo finalku soo gogoway wax u qabtay ma lahayn ayaga uma wax qabsaday marka taas waxay ka turjumaysaa in dhalinyartii ayaga ay maartay wax qabsatay iskeedna wax u qabsatay maanta waxaan loo qabsanay ciyaarta ugu dambeysay final waxaa nabadii nolol iyo Lazio waxay guusha raacday nabadii nolol waxay ku raacday penalty waxaan u hambaleynaynaa nabadii nolol oo ka qaaday iyo Lazio oo finalka imaatay ciyaar soo bandhigtay waxaan leenahay nabadii nolol hambaliyo
si kastaba ha ahaatee tartankan oo ahaa mid xiiso badan ayaa kusoo dhammaaday si wanaagsan waxaana ujeedka qabsoomidiisa looga gol lahaa sida la sheegay in dhalinta laga wacyigeliyo isticmaalka muqaadaraadka iyo falalka ka dhanka ah bulshada. Bashiir Gaxnuug, RTN, xeryaha Dhadhaab.